jirta marar badan waxa laga yaabaa qofka dhabta ay noloshaada u qalma muxuu kuugu imaan lahayaa laga yaabaa inaad isweydiisid taasi walwal ha saarin hana ka murugoonin hana ka ciishoonin marka hore waxa aad ku dadaashaa noloshaada inaad adigu maareey kartid inaad shakhsiyan isku mashquuli kartid inaad adigu wax bedeli kartid marka aad wax bedeshid qof walba waxa uu jeclaanayaa inuu bedelkaas ka qayb qaato laakiin haddaad adigu waxba bedeli karin qof walba oo aad baahidaada u sheegatid waxa uu isleeyahay qofkaani waa baahan yahay tusaale ahaan baahidu waa meesha ugu dhow ee qofka bini'aadanka looga faa'iideysto wixii rabana looga sameeyo haddii maanta gurigaaga la soo gargaraaco oo qof tuugsanaya soo gargaraaco albaabka markaa ka furtid uu ku yiraahdo waxa cunaa u baahanahay ama lacaga u baahanahay ama ii kaalmeeyo uu ku yiraahdo waxa laga yaabaa adigoo lacagta jebka kugu jirto allaha noo kaalmeeya inaad tiraadid sidaas si lamid ah dadku bini'aadankuna marka aad tiraadid naftaada isii waxa laga yaabaa inuu ka sii fakiro dib iskugu laabto waxa ugu horeeya ee la rabo qofku inuu qiimeeyo waa nafsadiisa adigu hadaada naftaada qiimeeynin oo naf kale qiimeynaysid taa micnaheedu waxay tahay mar walba inaad tahay qof baahan si wax kuugu hagaagaan ama qofka dhabta ah noloshaada ugu soo biiro adigu baahiha istireensiini inaad qof u baahan tahay xiriirkuna waxa uu ku qurux badan yahay mar walba inaad adigu wadadaada haysatid si wadadaada marka aad haysatid waxa ku sahlananaysa qofku inuu ku fahmo inuu wadada kula soo qaado laakiin maanta haddii aad ka fikiraysid xiriirku looma sameeyo kaliya inaad qof aad la socdaa kaliya aad dhehaysid ama qofkaasi aad isku farxsantiin ama qofkaasi aad wada kulmaysaan waa inaad ka fikirtaa awlaad imaan doonto waa inaad ka fikirtaa nolosha imaan doonto laakiin haddii aad ka fikiraysid kaliya xiriirka maanta taagan xiriirkaasi wuxuu noqonayaa guri aan albaab lahayn maanta dhan saas iskugu daba wareegsanaysaan marna asaa cararaya marna iyada cararayso markaad isciirsanaysaa noloshii oo dhan waxaa dhacaysa in kalsoonida ay ka burburto aaminaadii ay ka burburto farxadii ay ka burburto murugana aad daris la noqotid haddaba mar walba waxa aad ku dadaashaa marka aad wax sameynaysid marka hore inaad adigu isdhistid kalsoonidaada dhistid aaminaadaada dhistid fahamkaaga dhistid dulqaadkaaga dhistid haddii aadan intaa dhisi karin waxaa noqonaysaa mid mar walbaba ku nool rajo xumo tusaale ahaan qofkaani xiriirka lagu sheegayo waa wada hadal xiriirka lagu sheegayo waa isfahan xiriirka lagu sheegayo waa kalsooni xiriirka lagu sheegayo waa aaminaad xiriirka lagu sheegayna waa dulqaad qofkaani haddiisan rabin inuu kula hadlo qofkaani hadduusan daneynin inuu kula hadlo waxa aad ka fikirtaa mar walbaba dulqaad sameey dulqaad marka aad samaysid hadhooti wax walba oo dhaco dulqaadkaaga qofku markuu arko asaa jeclaanaya inuu asiga ku soo xiriiriyo laakiin dulqaad daada lahayn oo aad mar walba qofku dhehaysid maxaa kugu dhacay maxaa damacsan haddii aadan dulqaad ka dhisi karin oo qofku bini'aadanka ah marka aad wacatid ama aad raadisid kaliya uu kula soo hadlaya ama uu ku soo raadinayo ama marka aad wax u dirtid uusan waxba soo qoreynin oo aad ka fikiraysid maanta dhan halkaas waxa ka burburo waa dulqaad la'aantii noloshaadana mar walba waxa ku jiraysa dulqaad la'aan qofkaani hadaada fahmi karin fahamkii baa ka dhumaya qofkaani hadaada ku kalsoonaan karin kalsoonidii baa ka dhumaysa qofkaani hadaadan aaminaad ku qabi karin intaba marka ay ka dhumaan naftaada way saameynaysaa waxaana dhacaysa qofka dhabta ah noloshaada u qalma inaad weliga aad la kulmin waayo noloshu inta ugu muhiimsan baad iska burburisay si dadka ay ku fahmaan mar walba waxa ku dadaashaa dulqaadkaaga inaad badisid fahamkaaga inaad badisid kalsoonidaada inaad badisid aaminaadaada inaad badisid intaasi waxa ay ku xiran tahay noloshaada marka uu arko qofku inaad dulqaad badan tahay oo aadan kala jeclaan haddii uu online yahay ama uusan kula soo hadlaynin uu dareemayo qofkaani inaad waxyaabo kale ku mashquulsan tahay asaa soo cararaya noloshaada asaa usoo baahanaya laakiin mar walba haddaad su-aalaysid qofku culays dul saaraysid qofkaasi waa kaasii fogaanaya inta mar uu kaasii fogaanayana waxaa dhacaysa in aaminaadaada lunto waxaa dhacaysa in kalsoonidaada ay lunto intaasi markay luntane mar walbaba haddii qofkaasi aad kala hartaan ama aad iscalfo weydaan waxaa dhacaysa xiriir walba aad bilowdid inaad isfahmi weynaysaan su-aasha aad mar walba isweydiinaysana waxay noqonaysaa maxaa kaa qaldan maxay wax kuuga hagaagi laayihiin si ay wax kuuga hagaagaan marka hore waxa aad dhistaan shakhsiyadaada shakhsiyada lagu sheegayo waa inaad naftaada ku kalsoonaa kartaa waa inaad dulqaad yeelan kartaa waa inaad wax fahmi kartaa qofkaani haddii uu maya ku yiraahdo waa inaad dhihi kartaa okay haddii uu haa ku yiraahdo waa inaad dhihi kartaa okay laakiin haddii aadan dulqaad lahayn fahanna lahayn samirna lahayn qofkuna aadan ku kalsoonaa karin aadan aamini karin taasi kama imaanayso qaladka dhankiisa ee waxay ka imaanaysaa dhankaaga waayo haddii aadan adigu isdhisi karin oo aad iska dhisi karin inta qof bila aadana laga rabay maanta qofka haddii xataa uu ku xumeeyo qalad kuma yeelanaysid waayo waxa ahayd qof aaminaadiisii soo dhisay aaminaad badan qof aamini kara kama shaleynaysid waxa isleedahay qof bila aadan oo abuuran baa tahay oo qof aamini kara qofka kalsoonaa karo qof dulqaad u sameey kara laakiin haddaadan dulqaad lahayn qofka marka aad kala hartaan waxa aad ku noolaanaysaa shalaagaasina wuxuu sababayaa mar walbaba inaad qof cusub haddii aad baratid inaad baqdid
inaad istiraadi shalay qofkii meesha uu maray buu kana marayaa noloshaadana waxaa noqonaysaa mid murugo ku nool si taasi uu soo dhicin marka hore adiga kalsoonidaada dhis shakhsiyadeed qof walbana dunidan qof adaa aragti la jecel yahay waa qof naftiisa ku kalsoon waa qof aaminaad badan oo aaminayo qofka kale qofkana xataa hadduu been kuu sheego been baa sheegaysaa hadhihin okay waayo beentu wada gaaban bay leedahay runtuna wada dheer bay leedahay waxaan qofka beenta sheegayo eeda is soo xiraysa waayo qofka bil aadanka hadduusan go'aan lahayn qof walba oo markaasi u yimaado ayaa ku cayaaraya maskaxdiisa tusaale kubadda qof walbaba dhankuu raba ayuu u laadaa weli ma aragtay qof hal dhan u laadaya kubaddu marka aad laadid hal dhan ma aadayso waxa laga yaabaa 2 mar hadaa laadid labada marba inay 2 dhan kala aado sidaas si lamid ah qof walba oo noloshaada ku soo biiro sibuu ku laadaya jihadu rabuuna ku laadaya hadii aadan go'aan lahayn wasaaxibka shaahid bisani videogan aad ka heshay asxaabtaada la wadaag marna walbana maskaxdaada isticmaala assalaamu calaykum